ninaan qori haysanna ma jiro ninaan wax iska celin karayna ma jiro xabadda halkay ka soo bilaabay baa iyaguna laga soo bilaabaya nin walbana gurigiisa qori wuu yaalaa nin walba bastoolad wuu haystaa waxaan qabaa siday wax u dhaceen dagaal baa maanta dhacay sida qof bili aadan loo jirdilo sida ugu xun baa lii jirdilay runtii laakiin ka caban maayo intaa iyo inka hore waanu soo maray dibna way soo dhici doontaayo dee waa lay dilay adhan maayo laakiin ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan waxaa laga dhigay ciidan dadkooda laaya waxaa laga dhigay mid aan u kala soocin hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu suldaan yahay iyo hadday islaanta 70 jirkaa tahay iyo hadduu qof mudaharaad u socday iyo hadda mid aan u socon batay lama kala saaraynin si fiican looma kala saaraynin waxaan arkay ciidan aad wado ciidan ciil qaba waxaan arkay ciidan aan hayn waxaan arkay saraakiil aan ixtiraam lahayn saraakiisha aniga gacanta ila tagay si wanaagsan oo wada garanaya magacyada halka waxba ka sheegi maayo laakiin hadday wax qaban weyday xasaanada qaranka ee aan sida nabadgelyada soo qoftay hadday wax qaban weyday istirkaalka xidigaha iyo gaashaamadu dhabarka u saaran yihiin waxay ogaanaysaa in ay waxba qabanayaan ballan waan u qaadana inaan sharciga horgeeyno si wanaagsan baan u garanaa askariga qoriga dabadiisa nala dhacaya waxa la leeyahay dambi uu leeyahay ma jirto waana lagu dalbaday waana saamax askari kasta oo soo gaareen oo wax igu dhuftay saamax weeye kii saraakiishii igu xoogsanaysay ee dagaalaysay ee isugu kay tagaysay sharcigan isla hortagna haddii sharcigu shaqayn waayana nin walba ninka kale siduu isaga celiyo wuu yaqaan haddii sharcigu shaqayn waayo taas waxaa waxaan leeyahay ciidanka waxaa laga dhigay ciidan weeraraya baa laga dhigay ciidanka booliisku waa nabadgelyada weynaha ay u shaqeeyaan cid kale uma shaqeeyaan laakiin anigu taliyaha ciidanka booliiska waxaan leeyahay sida uu isagoo imika wuxuu qabanaya waxaan qabaa waa hal laba midig dhagideeyo isaga xagga naamar baa kaga socda culayska waxaanu arkay laakiin waxa ka maqan qaabka maanta ciidanka waxa loo baahan yahay ciidanku markuu soconayo inuu barbar socdo dadka mudaharaadaya xumaynaya uu qabto ka tuuga uu qabto muslaxo uu qoslo runtii gelinkii hore saraakiishii joogtay si wanaagsan bay u shaqaynaysay dadka qof walba kelmad deeqay yeedhanaysay laakiin waxa la dalbaday ciidankii ugu dambeeyay baa la dalbaday oo loogu talagalay xabadda inuu bilaabo loogu talagalay dadka inuu laayo waxaan qabaa siday wax u dhaceen dagaal baa maanta dhacay ma ahayn mudaharaad nabadgeliyo lagu celinayo ma ahayn waxaan arkay runtii ciidan dagaalamaya alxamdulillaah rabbil caalamiin ee wax dhintay maanta ma jiraan sidaan ogahay inkastoo rag badan oo Syriis ay jiraan laakiin waxaan dadweynaha u sheegaya ama xisbiyada mucaaradka u sheegaya maanta inaanu ahayn ciidankanu inaanu ahayn ciidankii loo baahnaa ciidankii ummadiisa ilaalinaya inaanu ahayn ciidan hanjabaya ciidanka xabadda dadkooda u horaya markii suuq la jiidayay leynay wada arkayseen waxa weeye markaas waxay noqonaysaa doon hadday ku sii socoto dee ninaan qori haysanna ma jiro ninaan wax iska celin karayna ma jiro xabadda halkay ka soo bilaabay baa iyaguna laga soo bilaabaya hadday nabadgelyada sideedii u soo noqon weydo oo dib la isugu soo celin waayo nin walbana gurigiisa qori wuu yaalaa nin walba bastoolad wuu haystaa halkaa kaga soo baxa siduu guriga kalena uu garanaya waxay ahayn waxa kaloo aniga laygu sameeyey markii la jirdilayay ee qaacna lagu dhufanayay waxa ii saaraa inama yaryar baa jiray oo aan isleeyahay xataa ciidan booliis ma ahayn waxay ahaayeen inama yaroo faanaya oo dagaalamaya oo suudharsito bastoolad hoosta ku sita mid ka mid wuxuu la soo baxay sprayga indhaaga ka shubay labada indhood dambiga si saasoo qac anigoo markaa miirla oo gaariga la cruiserka ee booliiska la saaray oo dushiisa markaa aan xaaladeedu halis ku tahay ayuu isugu libacay tabeen labada indhood iga sayray wac la yiri markaas ay igu daray saasa markaa la qaaday haddana in yar markaan marayno siiroga damal iyo stage-ka u dhaxeeya gaariga waa la iga soo tuuray laba inan ama saddex inan baa la dhiibay booliisa si xun ay sii jirdilay intaan sii socday wax walba aan u sheegay waan xishooda waan weyn baan ahay maxaad igu haysaan waxa looma joojinayn saldhiga nala geeyay waana la xiray runtii dhaacyo badan baan qabnayo
waxaan sheegtay inaan dhaawac badan qabo inaan xildhibaan ahay dhaawacyadana inaan iska soo dego taliyaha ciidanka way soo daayay aniga markaa wuxuu yidhi hala sii daayo waa xildhibaane hala sii daayo sidaasay wax u dhaceen waxaad sheegtay